مسؤوليinta wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool ayaa maanta si rasmi ah u furay imtixaanka shahaadiga ee dugsiga caafimaadka ee magaalada Laascaanood iyadoo ardayda dugsigani maanta ay u fadhiisteen imtixaanka waxaana ka hor inta uu bilaaban imtixaankan ee saaka lagu qabtay hoolka xarunta macadka caafimaadka munaasabad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka socday wasaaradda caafimaadka madaxda maamulka gobolka iyo marti sharaf kale waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay maamulka dugsiga caafimaadka iyagoo sheegay in ardadana ay tahay dufcadii ugu horeysay ee ka qalin jibinaysa macadka waa kuwaasi oo waxbarashadooda soo watay muddo gaaraysa ilaa 3 sanadood isla markaana ay noqon doonaan kuwa daboola baahida caafimaadka ka jirta guud ahaan gobolka Sool waxa maanta farxad weyn ii ah in aan idinku soo dhaweeyo gelistii imtixaanka gruubkii ardada iskuulka caafimaadka u horeeyay gruubkaasoo muxuu ahay ka kooban 34 arday 20 gabdhood iyo 14 wiil soo dhamaystay 3 sanadood oo waxbarashadii maxadka caafimaadka loogu talagalay oo isugu jirta casharo ama duruus la baranayo iyo muxuu ahay practice-ba kuwaasoo maanta ay annaga iyagaba ay noo rumowday riyadayadii ahayd in aan muxuu ahay ay ka qaljabiyaan iskuulka muhiimadii aan u furnayna aan isleenahay kulli waad gaadheen ama waad buuxiseen iyadoo ahayd baahi badan oo ay u qabtay muxuu ahay gobolka u qabay ardadaas iyo muxuu ahay loona wixii sababtii loo qoray ama loo aasaasay ama loo hidisayna ay ahayd baahi loo qabay ay ahayn dad la isaga hidisay in wax la isaga dhigo haddii aan ka warramo iskuulka caafimaadka gruubkan waa gruubkii u horeeyay ee aanu qaadano muxuu ahay maanta noo qalin jabinaya waxayna soo dhamaysteen 3 sano isla markaa waxaa daba jooga oo iskuulku wuxuu ahaanayaa iskuul muxuu ahay musalsala ama muxuu ahay daa'im joogto ah oo muxuu ahay soconaya sanad walba waxaa dafcadii saddexaad baa hadda noogu jirta iyaguna waxa weeye waa dafcadii koowaad tii labaad oo sanadkii labaad ku jirta iyo tii saddexaad oo sanadkii koowaad hadda aan qaadanay cusub saas iskuulku maartay isu daba haystaa insha Allah waxaanu rajaynaynaa mustaqbalka inuu sanad walba saa u soo baxo sida caalamka oo dhanba ah ama muxuu ahaayay ka socota ama muxuu ahaayay iskuulada maxaadida caafimaadkuba caafimaadku ay ahayn mid damaanaysa ama sanadku yaqaanaysa ama gruubka uu bixinayo marka saas awgeed waxay ahaanayaan sanad walba sanadka ka dambeeya mid muxuu ahaayay sida ay isu daba joogaan ardadu isla markaana muxuu ahaayay ku fargaraysa baahida caafimaadka iyadoo gobolka uu aad iyo aad uga jiro yaraan shaqaale dhinac walba oo baahidooda muxuu ahaayay loo baahan yahay inay muxuu ahaayay soo baxaan laga dareemay 3 sano ee ardadaas ay hadda noogu jireen iskuulka in muxuu ahaayay ay durbaba soo baxeen raadadkii muxuu ahaayay waxqabadkooda oo haddeerto aad loo dareemayo xitaa inta ay imtixaan ku jiraan goobahay ka shaqayn jireen loo dareemayo in ay baahi looga qabo markaas awgeed muxuu ahaayay iskuulka muxuu ahaayay rajadiisii waxaan filayaa 100% aan filaynay in muxuu ahaayay aan gaadhnay haddii muxuu ahaayay iskuulka waxaa iskuul wuxuu socdaa maxad caafimaad wuxuu socdaa baahidiisu kuma eka in duruus loo dhigo inay galaas fadhiistaan kaliya waxay u baahan yihiin aqoon fara badan waxay u baahan yihiin cilmi fara badan waxay u baahan yihiin meel weyn wax ku dhigtaan marka hadda annagu sida noo muuqata waxaan ku jirnaa guri kira ah guriga kirada aan kuma haboono oo meel suitable ku ah maxad caafimaad ma aha waayo waxa weeye ma waxa qaataan duruus kaliya maaha waxay qaataan wax theory la dhaho oo 10 ah waxay qaataan demonstration room bay u baahan yihiin meeshay practice ku qaadan lahaayeen oo ku haboon waxay u baahan yihiin casharada caafimaadku kuma eka wax macallimiinta kala dhigayaan waxay u baahan yihiin waxay interneto iyo kala soo baxaan waxay u baahan yihiin muxuu ahaa boolkii internetka ay ka heli lahaayeen aqoontooda siyaada ay kala soo bixi lahaayeen marka waxyaalahaas oo dhan ma kor garayn karto meesha ay hadda ku jiraan laakiin dabcan adduunku waa talaabo ku dhigtay inta markii hore ma jirin waxaan rajaynaynaa inta dambana in haddii aynu isku tashanno oo aynu waxaan gobol ahaan aynu isku tashanno dal iyo dibadda dadka u dhashay gobolkan in ay arrintaa gaari karaan oo si sahlan ay ku gaari karaan waxaana lagu heli karaa iyagoo meel ay iyagu iska leeyihiin oo ku habboon ay helaan oo muxuu ahay dadweynaha waxyaalaha facilitateskooda dhan ka helaan mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka halkaasi ka hadlay ayaa iyaguna sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin in ardaydan ay yihiin dufcadii ugu horeysay ee dhamaysata cilmiga caafimaadka ee nursingka isla markaana ardadu ay noqon doonaan kuwa ka hawlgala dhammaanba goobaha caafimaadka ee gobolka Sool intaas oo waxaa la baahan doonaa sidii aan iskuulka loogu hirgelin lahaa
ودي وحدة effort كستا كل ما وقت كستا قاعدتي هدي وحي الجلان آخر الحمد لله رب العالمين وإن اللي هذا ما تعرف عمل الفلكاس كل يوم ما يعمل اللي بيصير شيء كيسي سيدي ابن واحد ما تمر سوق جاري يصدق ما تمر هي الهوب بلي مركا كنت وحاعد مهم له وقلب كله وحويه ما دام تعدي وهرسي يا هل كان كبحد وحمر يا بس كان سكدا ميجا يو كوميونتي تولي في كل سكدا ما راح أقولهم لو ما قلت هاي يعني وحصوب حيال لا تقول هريه بحاجة لا سكب حيال دور بصوب قاعد كل واحد بدن وحي عرض حق ذا مركز هذا حيرتاك يا ضد ما بدن كان الصورة يوحى كل إنه عنده تعديل كله لكن ما دام وقت يقول عليه هاي وحنا وجه ذا بدون ينفع حاولنا كاسوات صوم المريء سوي كل وبالنسبة لتي إلى أمر كماتنا وتهرجع سوق على يوم امتحانك لا تقول هريه بعد يقول لي امتحانك ما توفريان إن شاء الله وحنا جنيه يومنا واسكت فيه امتحان كل يوم وحوالين وقاعد تنشرون بعد امتحان فرق لي يرتب تريه وسهري وحنا كسرنا هي سفي عن نوع وقول صندوقنا ardaydan maanta oo fadhiisatay imtixaanka shahaadiga ah ayaa noqonaya dufcaddii ugu horreysay ee ka qalin jebinaysa macadka tababarka cilmiga caafimaadka ee SHIT cabdiraxmaan cali ducaale telefishinka caalamiga ee Home Cable magaalada Laascaanood.